Ayeeyo waxay leedahay, waan xasuustaa yaraantaydii, markaan da'daada ahaa, waxaan ku fikiri jiray, mar baad ka weynaan doontaa, ood ka nasan, noloshaan kulul, oo ku bilaabatay kallahaadda, canaanta waalidka, dilka macallinka, xorriyad la'aanta, iyo mashaqooyin kale oo yaraantu igu haysay. Laakiin ayeeyo, waxaase riyo maalmeed ayay ahaayeen, nolosha xeerkeeda oo dhammina waa dhib iyo dheef yar oo ku lamaan. Nolosha dhibteedu dhammaad ma leh, wakhti badan ma haysatid noloshaada, ilbiriqsiyo saacado isu beddelay ayaa sannado noqonaya. Maanta ayaad geeri uga dhowdahay shalay, waxay ila tahay shalay inay ahayd markii aan da'daada ahaa. I rumayso ayeeyo, wakhtigaagu aad buu u yar yahay. Dunida wax badan ka filo, kana faa'iidayso wakhtigaaga iyo dhallinyarnimadaada. Maalmaha iyo saacaddu yaanay ku sirin, oo ay ciyaar kugu dhaafin. Danahaaga adduun iyo aakhiro si wanaagsan u raaco, ogowna sannadkii ku dhaafaba dib kuugu soo noqon maayo. Cimrigaaga cibaado iyo wax ku anfacaya uga faa'iidayso. Meeshaan adduunyo ayaa la dhahaa, waa marin maalmo la joogo, oo aakhiro loogu shaqaysto, laguma nasto, lagumana dhergo. Inta aad nooshahay, wax walba filo, waa lagu dhacayaa, waa lagu dilayaa. Waxaa ku khiyaanaya kuwa dadka kuugu dhow ee aad aamintay. Abaal aad gashaa ayaad eedaysaa, oo eed kugu noqonaya. Been ayaa lagaa sheegayaa, ceeb aad saliim ka tahay ayaa dusha lagaa saarayaa. Ha la yaabin waxaas oo dhan ayeeyo, waa adduunyo iyo howlaheeda. Wiilkaygiiyow, intaad dunida joogtid, lugooyo aan dhammaad lahayn u diyaargarow. Haddii aad warkayga been moodaysana, orod adiguba dunida soo arag. Sidaa ayuu sawirkani u hadlayaa.